siyaasadeedka wadani ayaa xaflad ballaadhan oo ay maanta ku qabteen hotel Shamaxle ee magaalada Burco kaga dhawaaqay 8 musharax oo ka qayb gali doona doorashada deegaanada ee ka dhici doonta gobolada Togdheer, Maroodijeex iyo gobolka Daadmareed. waxaana musharaxiintan 6 kamid ay ka qayb gali doonaan doorashada deegaamada ee degmada Oodweyne, halka labada xubnood oo kalena ay ka qayb gali doonaan doorashada deegaamada ee degmooyinka Burco iyo Hargeysa. munaasabadan oo ay ka hadleen mas'uuliyiin xildhibaano waxgarad iyo cuqaal ayaa waxa kamid ah hadaladoodii. sideedan musharaxba waxaanu garanay cuqaal ahaan iyo guurti ahaan iyo odayaal ahaan sideedaba inaanu ka shaqeyno aanu keenno urur siyaasadeedkan wadani majority ahaan dhammaan ururka wadani waxa uu idinka gudoomay 8 musharax ee aad u garateen in ay hogaamiyaan tartamayaasha urur siyaasadeedka wadani. waan idinka gudoonay aad iyo aadna waa ugu mahadsantihiin. Daadmareed, Caynaba, Saaxil, Hargeysa, Boorame, dhammaan Somaliland sida halka uga muuqata ayay uga muuqdaan dadku taageer ururkan wadani. waxa la yidhi guriyasamo iyo laba dego mid walba magaciisa lagu degaa. ururkeenu waa guriyasamo ninka laba dego doona waa adiga ku jirtaa. beesha go'aankeedii waanu idiin sheegnay inta yaraa maqashay inaynu ku guda jirro oo insha Allah bismillaahi kariim maalmo gudahoodaanu ku dhammaynayno waanu idiin sheegnay. ciro oo xusbigan wadani ka gudoomiyaahi hagulayso arrinkeenu maanta waxa weeyaan waa taageero aynu ku taageerayno musharaxiinta beeshaas Barlubaanto ay soo sharaxday ee ka sharaxday gobolka Togdheer iyo gobolka Daadmareedba, iyaga oo halkan ka muujiyay beeshu ama kaga dhawaaqday ama ay ka muuqataba waxa la yiraahdo ama ereyga la yiraahdo midnimo. Xirsi Jaamac waa musharaxa ururka wadani oo ka tartamaya magaalada Burco ayaa ballan qaaday in haddii uu guuleysto uu si cadaalad iyo sinaan ah ugu adeegi doono bulshada. xafladan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa ka hadlay mas'uuliyiin isugu jirta haween, xildhibaano, cuqaal iyo waxgarad, kuwaas oo dhammaantood soo dhaweeyay musharaxiintan ballan qaadana inay taageeri doonaan. bacda tahiyatul islaam waxa wax ilaahay loogu mahadnaqa ah lagu farxo midnimada beesha Badhulbahante oo anigoo kamid ah howlwadeenadii ururka xisbiga qaranka kulmiye aan hore ula soo shaqeeyay aanan aqaano midnimadooda iyo kalsoonidooda isku duubnida maanta ay urur siyaasadeedka wadani kaga soo qayb galeen dhalinyaro iyo waayeel iyo caruur iyo haween aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqaya. anigoo ku hadlaya magaca musharaxiinta urur siyaasadeedka wadani waxaan ilaahay ka rajaynayaa gabi ahaan gobolada Soomaaliland musharaxiinta urur siyaasadeedka wadani in ilaahay uu guul kala kulmiyo musharaxnimadooda. waxa la yiraahdaa in hebel baa la yiraahdaa. marka waxa weeye beesha musharaxu waxa weeye aynu rajaynayno madaxweyne Maxamed Axmed Maxamuud Silaayo madaxweynaha ka dambeyn doona insha Allah ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi inuu yahay nin beeshan ka tirsan. marka meel walba halka imaka Hargeysa xafladii weynada ee muwaashirka ahayd ama live ka ahayd islaam boorama ka tibaya waxay tiri hooyadii baa nin dhashay bay ku gabadhay. marka waxa weeye idinka dumarkiina si gaara ayuu meel idinka yaalaa haddii aad tihiin hablaha iyo islaamaha beesha Badhulbahante. Kaysa Axmed Digaale, Home Cable TV. asbad balaaran ay isugu yimaadeen salaadiin cuqaal xildhibaano haween dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan ayaa ahayd mid ay ku taageerayaan xildhibaan Xirsi Jaamac Cabdi oo xildhibaan u taagan doorashada golaha deegaanka ee degmada Burco kaasi oo musharaxaas iska soo sharaxay urur siyaasadeedka wadani. munaasabadan ahayd mid si weyn u kulmisay bulshada qaybaheeda kala duwan. waxa ka soo jeediyay salaadiin aqoon-yahano xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Somaliland haween iyo dadweynaha aad u tiro badan waxayna dhammaantood si weyn u soo dhaweeyeen musharaxani oo ay ku sheegeen mid hana kara musharaxnimadaasi. waxayna sidoo kale munaasabadaasi ka ballan qaadeen ololaha doorashada ay hiiliyo hoob ay la garab istaagi doonaan musharaxani. sideedan musharax dhammaantood waa beel ka tirsan
beesha ka soo jeedo musharaxan maanta ina macsuumay 8 musharax 6 ka mid ah halkan fadhiya 2 ka midna way naga maqan yihiin mid wuxuu ka sharaxay degmada Hargeysa gobolka Maroodijeex midna wuxuu ka sharaxay wuxuu ku jira 6 musharax oo dowladda ka sharaxan 8 musharaxba waxaanu garanay xuquuqahaan iyo guurtahaan iyo odayaalahaan 8 inaanu ka sharaxno aanu keenno urur siyaasadeed kan wadani waxaan leeyahay beesha midnaka beel waxa loo ballanaa hadii beesha badul baantanahay midnimo waxa weeyaan dadka aynu isaga xignaa inaga dhexeeya waxa weeyaan waa waxa uu magac gooyo weey ayaa maanta aynu baadi doonaynaa inta kadib halkan waxa muuqata saadaashu siday tiri nin kale saami kuma laha soo inaguna ma siina markaa saadaas sidaasay waxaan leeyahay hadalka badi maayo rag waa badan yahay haddaynu magacaana inaga waxay noo ballana annagu haddii aanu nahay garabka haweenka una hadlayo magaca garabka haweenka beeshan aan ka midka ahay waxaanu aan ku midaysanahay oo aanu dhammaantayo iskaga mid nahay xisbiga wadan inaanu taageerno iyo musharaxyaga jaamac xirsi cabdi xildhibaan xirsi jaamac cabdi oo ah musharax u taagan doorashada golaha deegaanka ee degmada Burco oo isna ka hadlay xafladani ayaa ka warbixiyay ujeedada ku kaliftay inuu iska soo sharaxo urur siyaasadeedka wadani wuxuuna musharaxu sheegay inuu ku doortay urur siyaasadeedka wadani mid hanaan kara sidii uu doorashadaasi ugu guuleysan lahaa kuraasta ugu sarreysa dalkani Somaliland sida ninka hore sheegay sida muuqata xisbiga wadani waynu aragnaa xamuurihiisa anagu waan la jaan qaadno waxbaan la qabsanay waanaynu nahay dhammaantayo waxaan lahay haddaan rag lahay iyo haddaan haween lahay iyo haddii ay odayaal yihiin iyo hadday cuqaashi tahay wax laga soo shiray oo laga soo shaqeeyey anigana laygu keenay reerkuna uu ku tashaday ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay guul baan ilaahay loogu rajaynayaa inaynu gaadhno sida uu sheegay hadda xisbiga wadani xagga rabaaba laga raacsan oo waanu aragnaa dadka qof kasta bartiista waa ku sagar raacsan kastabaatay munaasabadan ballaaran ay isugu yimaadeen salaadiin xuqaal waxgarad iyo dhalinyarada beesha badhbaantay habar yunis ayaa ahayd mid ay ku taageerayaan musharaxnimada xildhibaan xirsi jaamac